السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيرت شرفت لك السود وهذا يوتيوب بيج كده عوضة وحفلاقين دونا كلنك وهردع كلنك وين كوحة اف سي بورتو يما يونايتد كل حمر دون جرو كوحة اف سي بورتو أدو إلى مع المدى قميص أبينك جماعة يسوق ليسو أفر ساعة بينهم sidoo kaleeto waxaan fiiri doonaa wararkii ugu dambeeyay ee kooxda Man United iyo macallin Ten Hag waxyaabihii laga dhahay marka soo dhawaada like t-shirt iyo subscribe ta noo saara ayaan laga hilmaamin hadaba bilaaga kuwad video inta u gudagelin noo saara marka hadda halkaas ugu gudubno hadda ku bilaawno saadaalinta kulankan iyo falanqeyntiisa kooxda FC Porto iyo Man United horta waxa uu isugu dambeysay oo muddo meesha iska hor imaanin Europa League iyo Champions League midnaba ma isaga hor imaanin marka waxa la leeyahay sideedeedii kulan ee ugu dambeysay ee macnaha kooxda Man United iyo FC Porto ay dheelaan saddex jeer barbardhac ay galeen lix jeerna FC Porto laga badiyay ma saddex jeerna waxa waa FC Porto macnaha waxa waa laga badiyay ma fahanti marka ugu dambeysay ee labadan koox kulmaan waxay 2008 oo Champions League ay qaadeen oo hal ibra ugu badan macnaha marka nimanka waxa la leeyahay hadii aan fiirno formka kooxda FC Porto kooxda Man United formkeeda waa aragnay ba ka taalay FC Porto shan kulan ay dheeleen shanta kulan ugu dambeysay ay dheeleen afar kulan kamid waa badiyeen hal kulan bis laga badiyay oo 3-2 looga badiyay kulamadooda kala dhan waxa waa goolan waa dhashanayeen waana badinayeen 2-1 3-1 4-1 kulanka laga badiyay xitaa 2-3 ku dhamaatay halka United shanta kulan ugu dambeysay ay dheeshay laba kulan barbardhac ay gashay hal kulan waa laga badiyay hal kulan way badisay oo kulankii Barnsley bisay badisay Crystal Palace barbardhac la gashay FC20 barbardhac la gashay Tottenham dishay marka United waxa waa xilli fiican uma ah wuxuu baalka ugu soo aaday ciyaartan wuxuu ugu soo aaday xilli xun ugu soo aaday sidoo kale kooxda Man United waxa dhaawac uga maqan Lucas Shaw Tyrell Malacia iyo Leny Yoro waa ogtihiin maana horeeto waxa isdheeynay junior Kamano amu dhaawacmay iyo Mason Mount ama dhaawacmay laakiin waa fiican yihiin dhaawac weyn ma ahayn wax yar oo jug yar soo gaartay aad sidoo kale macallin Ten Hag marka shaxda la filayo inuu ku soo galo kulankan maadaama labadan kulan ay yihiin kulankan oo FC Porto uu baxay iyo kulanka ku xigo oo la dheeli doono Aston Villa oo la dheeli doono oo la leeyahay labada kulan oo macnaha go'aamin doonto mustaqbalkiisa waa oo hadii labadaas kulan laga badiyo ama mid kamid laga badiyo waa la burna hadii labadooda badiyana xoogaa rajo ku sii joogo leeyahay maadaama la leeyahay Ten Hag wuxuu ku qasbay inuu shaxda ku soo galo mafad oo macnaha ciyaartoy adag oo soo gashta garoonka soo guul u keeno hadii kale waxa waa u maleynayeen ma ka saaraysa dhow marka shaxda anaga afreeno waxa inuu ku soo gal doono jecelna oo qiyaasayna waxa waa Onana inuu Porto ku soo bilaabi doono sidoo kale Mazraoui Dalot Martinez iyo Delight oo daafac ku soo bilaabi doono qadka dhexe oo ku soo bilaabi doono Bruno Fernandes Eriksen iyo Ugarte inuu ku soo bilaabi doono sa qiyaasay oo maaynu la fadhiisi doono maadaama kulanka hore jug soo gaartay Casemiro uu soo dhiiri karin garbaha Rashford iyo Garnacho dhilsiis doona halka afka horeeto oo ku soo bilaabi doono Zirkzee ku soo bilaabi doono kulanka Rashford afka hore dhilsi garbaha waxa dhilsiisa maayno ama Diallo iyo Garnacho labada garb dhilsi afka hore Rashford dhilsi Zirkzee keed gelinayo ama Diasho dhilsi Bruno keed geli saas sameeyay daarti waa inta shaxda qiyaasayna aan jecelnahay inuu ku soo galo Ten Hag laakiin waxa maalinkan dhowr jeer inta shaxdiisa qiyaasnay shaxdana fiican ku soo galaan oo ku soo gali waay marka lama yaqaan waxa laga kulmi doono hadda halkaas ugu gudubno hordhaca kulankaas wararka ugu dambeeyay laga sheegay kooxda Man United waxa la leeyahay hadda amaano horta waxaan ba arkay stats isbarbar dhigayso Gary Neville oo Valencia joogay iyo macallin Ten Hag waxa leeyahay 28 kulan ugu dambeysay oo Gary Neville Valencia intaan laga burnin u dheelay oo macnaha uu hogaamiyay 11 loos oo qaatay 11 jeerna waa laga badiyay 39 goolna uu kooxdiisa way dhalisay 38 waa laga dhaliyay macnaha waxa waa 1 goal difference oo taar leh 11 loosna uu qaatay waa 28 kulan sidaas oo kale waxa leeyahay macallin Ten Hag 28 kulan hadda ugu dambeysay kooxda Man United 10 jeer laga badiyay 42 gool u dhaliyay halka 40 gool laga dhaliyay laba gool difference wata asiga iyo macnaheedu waxa waa asiga iyo Gary Neville isku mid waa Gary Neville wixii Aston Villa lagu buriyo oo ninka wadadii lagu buriyo ninka ku socdaaba waxa ninka loo haystaa macnaheedu marka ma la buriyo ninka macnaha wali ugu dhagan yihiin sidoo kale to goolasha ugu yaray ee Premier League kooxaha ay dhaliyeen oo guriyada ku dhaliyeen Man United waa saddex kulan ee gurigeeda season-kan ku dhashay kooxda Man United Premier League hal gool dhalisay fahmaysaa
marka waxa waaye yani waa ujeeda tanaag weerarka laga haystaa gool dhalinta laga haystaa difaac sanadkan waa iska saxiyo ciyaarto fiican loo soo kaday laakiin gool dhalinta United laga haystaa war kulan kasta waxaan ku dhahay hal iyo laba ay ku dhamaanaysaa hal goal difference yaaba hadaa badanayno ku badana hadii kale waabana naga badiyaa marka dad soo gudubno ninkii Bruno Fernandes horta kooxda Man United waxay ka qaadatay abiil ka qaadatay Rossi Manuel la siiyo 3 kulan oo seegay Premier League hadii sida caadiga aan leed laakiin abiilkii laga aqbalay oo waxa leeyahay arbitri waa ku fududaaday kaasoo Rossi siiyo marka already soo Rossi siiyo 3 kulan garax ma loogu dari karo abiilku waa laga dhaafay kulanka ugu soo horeeyay Aston Villa waa dheelaya leeyahay Bruno Fernandes anaga ma arabni Bruno inuu 3 kulan naga maqnaado oo Bruno la'aantiis kooxda inay noo toostaa laga yaabaa laakiin ma noqono Premier League waa kana aniga waa soo fasaxeen baa dheelaya marka waxa la leeyahay sidoo kaleeto ciyaartooyda Man United markii la fiiri badankood waxay aaminsan yihiin macna tanaag in la burin doono oo macnaha oo mustaqbal oo san ku lahayn kooxda hal ama laba kulan oo joogo doono oo la burin doono ciyaartooyda marka ay is aaminsan tahay rajada yeela karta maxay tahay Martin Keown midallo wuxuu dhahay kulaha marka fiiri kooxda Man United tabar ku xigeenkeeda iyo marka fiiri kulaha Ruud van Nistelrooy ninka caawinayo ama ninka howl la qabanayo ama ninka garab galayo wax ka caawinayo ma uu akab kulaha meesha iska taagay uu fiirsaa ninka inta la burana uu suuga macnaha kula inta tanaag la burana oo asayna shaqada ku wareego ma raba macnaha waayo macnaha uu ninka uu caawin la yahay macnaha ma tanaag wax walba culays kasta dusha looga saara ninka wax la xisaabtamo waxa loo leeyahay asay loo soo hadal qaadi lahayd kula marka waxaasana keenayso in la dhaho kooxda Man United labadan kulan oo FC Porto iyo Aston Villa oo ninkan Janis hasta haduu badi waayo waa la burinaa Nistelrooy loo dhiibaa haduu sabadiyo laakiin waa macna inuu joogo rajaa jiri karto mafaad marka niyo waxa waaye daqiiqad dambeysay statistics qaabta darno Man United waa iska daba dhacayaan hada 44 kulan u dambeysay oo dheelay Premier League goal difference goolasha dhalan iyo goolasha laga dhaliyo markii la kala jaro laba goal difference bisaab haysanaa waa 44 kulan Premier League ah waxa kale waxa laga yaabaa 90 goal difference inay haystaan Arsenal iyo Man City ay haystaan iyo Liverpool labada kulan Premier 20 kulan u dambeysay Premier League 6 kulan oo badiyay macna Ten Hag can you believe that Ten Hag in la burna inuu shaki kaaga jireen 20 kulan oo 6 kulan ka badiyay inta kale tadrow iyo waxa loss waxa soo dhibcaha bari hay sagaalkii kulan ugu dambeysay Europe ka dheel ama Champions League ama Europa League aadane hal kulan oo badiyo inta kale kulan laga badiyay kulan baraaji kale ah marka waxa waaye 25 kulan in laga badiyo oo macnaha oo sidoo kale 25 kulan laga badiyay intuu macallin Ten Hag joogay Man United 25 kulan waxa loogu badiyay 3 gool iyo ka badan looga badiyay marka waa u jeedaa macnaha waxa waaye gool ma dhalino gool badan anaga dhaliya meesha daafac ma ku hayno ebro marka sanadka horena waa ogeedinay 14 jeer Premier League bis laga badiyay intaana meel kale loo gaan 14 jeer Premier League bis loo qaadan marka soo ku sii jooga Ten Hag adiga ma kula tahay in intaas oo wax soo maray intaas oo dib kooxda u geystay kooxda inuu sii jooga ma kula tahay ma aaminsan tahay marka waxa waaye war goolasha la libis 6 kulan Premier League hadii loo fiiriyo kaalanta 17 soo galayna go'aan yarkan anaga goolal badan ay goal difference kaalanta labaad ku jirnaa kaalanta 20 ku jirnaa anaga ugu hooseyn oo ku xitaa ka imaaday Serie B ka imaaday goal difference naga badan يعني سوق بدنا بريمير ليج يا قساري يونايتد قساريس oo 17 jaanis qasaaris shoodka kooxaha kala fiiri kaan toonada ku jirnaa oo 29 shuda 6 kulan arin ay anyway war ma wadane aan Ten Hag xawaan yoom waa ku day anisa aamisana macaan Ten Hag waa ku day wareys hada oo la yeelatay Sky Sports la yeelatay maanta maxaa la maqana ma aaminsanta halla ina si joogis kooxda wuxuu ku jawaab maqana ما أنا معنا كوحدان يتيم كان وبلرني أكو بلرني معنا إن سوق الصونان إن بسنين إزنيد سكول سنو معنا تيم كان وجدة إن الدجالمان يربان أنا أقول ربنا وأنا جاري أنا مشس وحير معنا تاجرش حتى وأنا تاجرن أنا لو دلقاته نقول شو ما أنا كم لا كم مقنع حلقة في لا كم مقنع نكسس واحد لا وأنت سوق قول درك صار هذا قولوا أسئلة سعية مركنية وعوا Ten Hag sidoo kale waxaan hadii micnaha oo labadan kulan soo socoto Sky Sports ay weydiinay waxay ka horeeyeen labadan kulan soo socota la hada badiweys ma message micnaha ma aaminsanta ina ku xisii joogis war aniga kula waxaas aniga cabsaas ma imaayso kula
labadan kulan ama la iga badiyo ama aan badiyo tiimku waa sii joogi rabaa intuu season ka dhamaanayo macnaha waa joogaynaa macnaha isku duubniyaa sameynaynaa ilaa samarka laga gaara waxaa ku ballan kulaha nimanka kooxda iska leh isku duubni inaan sameyno guul iyo guul darrabo inaan isku duubnaano ballan ku gaarna kulaha micnaheedu maxaa haddii labadan kulan laga badiyo xitaa macnaha waa joogi rabaa waa aaminsan yahay waa ninka oo 600 milyan ciyaartoy ku soo gadaa Scholes amar dhaxas waxa la weydiiyay mugta alla ti igu darna duceed Scholes alla Maguire Delight ee soo gaatay United Maguire booskiisa ma ka fiicin waxa Allah ya fiican la Delight iyo Maguire hor wax xees dhamaan ma loo yeeraniyo ana hada Delight kula wax oo Maguire ku dhaam ugu jeedo malaha oo isku mid waa taagay marka qaarniyo nimankan ciyaartoydan oo maayna soo dheeri jiray ayaga fidnada ka dambeeyo Delight iyo isku bardhiga Scholes nuu waa kooxda ixtiraam ku leh laakiin isku bardhiga Delight iyo Maguire isku bardhiga halaas waxay ka tahay ninkan Ingiriis ku leeyahay macnaha qabyaalada ka tahay halaas marka nin wararka kooxda Ma United waa badan yihiin halaan ay ku soo gabagabeynaa wax kale warar soo dhacay la soo gudbi doonaa falanqaynteena kulanka FC Porto iyo Man United sidoo kale meesha ay ku soo gabagabeynaa saadaalinteena aad ugu galno kooxda Man United waxa saadaalinna FC Porto inay guul ka soo qaadato Ten Hag waa la yaqaanaa waa survivor waa dadka macnaha oo markii AS ninkan waa dhimay nafta ka baxday oo badbaado waa kulankan FC Porto ka soo badana Aston Villa ka badbadana oo ka soo badana ma baaba nik buuq ku furnay waa arki doonta ila soo fiirsan laakiin FC Porto de ka boos Ten Hag oo ku salaama like share subscribe to Nosara wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh